Hello everyone, welcome back to the channel. This course is about English grammar. Kusoo dhawaada koorsada waxaa lagu baran doonaa insha Allah taala English grammar. Waxa weeyaan naxwada luqada Ingiriiska. qaybo kala duwan ay ka kooban tahay insha Allah koorsadan waanan geli doonaa hadii la yiraahdo shaashada idinka muuqata. qaybta koowaad u geli doono waxa weeyaan course outline sida table of content markaad eegto waxa waaye we have from number 1 up to 25, so we have 25 major components ayuu ka fagareen doonaa koorsadan ay ka fagareen doontaa hadii la yiraahdo aad ku baran doontaan, and each component has different subtopics where we are going to explore taking specific timelines that we'll be able to go through. So this is the course outline, this is the course materials, these are the course topics, this is what you are going to study inshallah. Now let me go back part of the course, which is now the lessons. If you look at it, the lessons is just according to the time table of content that we've seen, that is 25 major component ayuu ka kooban yahay casharka. Topicyada waa kuwa idin muuqdo: present tense, past tense, present perfect, and then countable nouns. Roughly just to mention a few, xogaa yar haddaan ka taabano tusaale haddii aan furo present tense oo kale, this is what you guys will be studying under present tense. These are the examples, waqtiyada la isticmaalo iyo sida loo isticmaalo iyo macnaha ay sameeyaan. And then maybe I want to open one more thing before I leave this page. Now let's go to the last one. With the udambesan adayna 25 nominalization in written English, and then this is what you're going to cover. Under this we're going to look at all this inshallah ta'ala, and hopefully you guys will pick a lot inshallah. Now I go to the second part of this course. I mean the third part. The third part qaybta saddexaad waxa weeyaan waxa waaye test u dambeeyo oo aad gali doonto hadii la yiraahdo testiga aad sameyn doonto ku qaadan doonto shahaadadaada. So let's look at it. So this is the exam that, or the kind of questions that you'll be doing. So you don't have to look at them right now. It's not okay for you to look at it now. So this is the exam. Okay, it may not all the exam, but exam ala soo nashnasha dabcan, lakin that's practical waxyaabaha ma assignment iyo exercise iyo layliga aad ku qaadan doontaan hadii la yiraahdo. Marka generally coursedan waxaan ugu talagalnay dadka Ingiriiska xoogaa ilaa heer ka joogo ka gaaray oo wax u bilaaban yihiin oo de reportyadii iyo warqadihii arjigii iyo waxyaabihii isku dayo oo luqadii ku hadli karo xoogaa. So just waxay rabaan oo kaliya polishing kabaha maaragtay subaxdii markaa shaqada aadaysa moogtahay, you polish your shoes, kabaha xoogaa yar nuursanaysa maaha waxaad u nuurinaysa waxa weeydi oo waxa laga yaabaa inay maalintii dhan markaa daqiiqad isticmaasho xoogaa iska boor ay wada noqdaan, laakiin markaas aad iska nuurinaysa. So dadka Ingiriiska u baahan inay xoogaa iska yar nuuriyaan polish yar mariyaan, laakiin hore u soo xamaashay oo maaragtay wax badan iyagu soo qabsaday soo bartay, dadkaas aan ugu talagalnay. This course is not for beginners. It is not for beginners. I'm saying it again, it's not for beginners. So inshallah ta'ala koorsadan ayaan bilaabi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. waxaanad la socon doontaan casharada iyo qaabkii u bixi doonaan. waxay ku bixi doonaan a mixture of English and Somali. I will try my best to facilitate both in English and Somali si loo helo fahan dheelitiran oo labada luqada, because in most cases Somali waxay dhahaan dadka waxa weeye luqadiyaan lagu baro English to English hana lagu baro, English to Somali hana lagu baro. anaga kitaabada markii la baro hada baabun ana la dhihi jiray maaha. Now halkaas ku soo gabagabeynaya intaas waa guud markii. That's the overview. We're going to meet in the class inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.